waan islaamay walaalayaal meel walba joogteen kusoo dhawaada shaah maanta maanta waxaa rabaa dhagihiina inay si fiican aada u furteen ya waa inay dhagaha si fiican loo furo horta anigu wax badan baan aamusnaa ya balse maanta waan aamusi waaye maanta aamusi waaye gabadha amiira cadday la yidhaahdo amiira cadday gabadha la dhaho waa walaashay waa mataanadeyda ya aniga iyada saacadooyin ayaan kala horeyna ya sidaan iskugu egnahay arag journalistana waan ahay aniga ya meel walbaan ka soo baaray meel walba ayaan ka soo baaray arrintan aniga anoo soo baarinna iskama soo fadhiistay halkan iskama hadlo ha ka yaamin anu wax soo baarin inaan intaan iska soo fadhiisto halkan aan iska hadlo marka kule ani been ma sheegayo hooyadays koreya qabtaa iyo waxaas ma dhahayo laakiin dikar way qabtaa hooyo amiir cadayna shilin ma siiso hal shilin hataana ma siiso wax ay ina siiso mala ninkaas aadan la yiraahdo waxaan u malaynayaa gabadhi walaashay inuu sixray ha iga soo garbaxo Soomaaliya haddii aad clipkan idin soo gaaro fadlan gabadha iga gaarsiiya amiiro iga gaarsiiya ya weliba aadan iga gaarsiiya amiir waa bay ogsoon tahayba iga gaarsiiya aadan siduu aniga magacaadii iga soo garbixi lahaa uu gabadha walaashay uu intuu u sixray asaga ma ahane indho kale ay qof kale ku fiiriso mala ya anigoo walaalkeed way iska ka hilmaamta oo mataani ahaan jirna meelaan ka raadiyo intaan waayay baan youtube-ka aan ka arkay marka waxaan is leeyahay gabadha maxaa iskugu egtihiin baraabaa tahay ya ila mataanaan ahayn markaasaan sii dulgaray 20 sano ya intaan journalistnimo akhrisanaya 20 sano ayaan saa u baaray hadda buurtaasaan fiirinaya waxaan ka fiirinaya ya ina amiir cadday isoo fiirinaysa camal markaan arkana waa maseera odaygeeda saa ugu dhegan tahay ee u jeceshahay ay marna u dhaqaysaayo oo ama lugaha u riixaysaa ama ay u cadeynaysa u qurxineysaayo ya maxaa familigaaga markaa odayga magaasaa ugu dhegdhegan tahay ya adig maxaad ii hilmaamtay oo familigaaga maxaad u hilmaamtay ya maxaa rabtaa gabdhihii walaalahaaga inta halkan soo wada fadhiisiyey iyo hooyo kulli inaan inta soo wada fadhiisiyey aan kula soo hadishiye ma rabtaa oon dadka wada tuso aniga haddana ima dhihi kartid beentaa ima dhihi kartid ima ekid aniga waan ku ekahay waan isku egnahay ya sideetaan iskugu egnahay marnaba ma dhihi kartid wiilka iskuma ekidin ya intuu iga sheeganayo ma dhihi kartid been marka aadan sixirka iska dhaaf walaalo sixirka iska dhaaf gabadhaasu ciddaha waxaa usoo dirto cidda waxaa usoo dirto gabadhaas cidda waxaa usoo dirto walaalo fadlan codsi waayay waa codsi ya adduunya waa la waashay intii la joogay wax walba waa la arkay ya qof baan iska soo wadan waxaa leeyahay wuxuu la dhashay heblaay marba haddii aad baraha bulshada ka muuqato oo lagu garanayo ya waxaan arki jiray Nadira Nairus oo leh aabaheeda anaa dhalay
marka waxyaala qaarkood waxaa jira inuu shactire ay noqon karaan oo shactire ahaan balse soomaalida ma garanaysa soomaalida wax walba dhab bay u qaataan haddii social media lasoo geliyo way ku yaacayaan marka qofkan iska soo fadhiisiiyey magacaadii gabadha leeyahay aadan baan la dhashay walaa aad baan ka yaa mideeda kale siduu u fadhiya fiiri lugaha aniga lugahayga fiiri lugaha saan waxaa isku dul saartaa gabdhaha waxaan ka wadaa aniga camal ya noocyaha la isku fahmo waaye nin lugaha saa isku dab saarana haddaa aragto ya lugaha saa isku dul saarana haddaad aragto saaxib left waxa ugama dhawo left iyo right ba waa kulligeeda marka qofka intuu soo cadeeya isagoo madaab banaan jirna asalkiisa hore abo youtube waxaa laga gaaray ya ba adiga hadda maanta intaan meesha soo fadhiisatay ba waxaad leedahay journalist baan ahaa leedahay gabar intaas iska soo dhigta waan ka yaaba arinta ayada waana ka aamusi waaya amiira cadda weligeed horta ma aqaano si baan u jeclahay gabadhaas qofkii haysto oo dhan way gubtaa saas baan u soo istaagaa koleeto ya waan ku salaamaya walaal haddaad clipka aragto adi aadan wallaahi bilaa dad waxaa tihiin boqortooyo jacaylkiina haddee soomaalidu jacaalkaas ma taqaanto jilitaan iyo wuxuu ahaadaba jacaalkaas ma aqaanaan soomaalidu waxaa adig waa waxyaalaha in la baro oo education ahaan oo markaa loogu sameeyo ayay ka mid yihiin marka haddii ayaga wax ka baran waayeen intaas yaroo adiga labadiina aad iskugu roontihiin oo isjeceshihiin oo isla qoslaysiin oo cuntada isku karinaysiin oo lugaa iskugu riixriixaysiinba intaasba hadday dhibsanayaan masiirka adduunka haya saaxiib il bilakha u siinina waan islaam till next time bye